safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Djibouti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed ayaa wuxuu tacsi u dirayaa wasiirkii madaxtooyada Jamhuuriyadda Djibouti u qaabilsanaa maalgashiga marxuum Cali Geelle Abubakar. safiirku waxa uu qoraalkiisa ku bilaabay anigoo ku hadlaya magacayga kan safaaradda Somaliland ee Djibouti kan xukuumadda iyo shacbi weynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxaan tacsi tiiraanyada u dirayaa xukuumadda Djibouti shacabka Djibouti dhammaan qoyskii iyo caruurtii iyo qaraabadii uu ka baxay Allaha u naxariistee marxuum Cali Geelle Abubakar wasiirkii hore ee madaxtooyada Djibouti u qaabilsanaa dhinaca maalgashiga. Cali Geelle Abubakar Ilaahay u naxariistee waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadka magaca iyo maamuuska ku leh waddanka Djibouti iyadoo aas qaran loogu sameeyay xabaalaha ku yaala galbeedka caasimadda Djibouti waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Maxamed Jaamac Waale. warbaahinta qaranka Somaliland Djibouti.